Afrika uma baahna gargaar oo keliya ee waxa ay u baahan tahay iskaashi iyo qiimeyn. Dal kasta oo dawlad qani ah wax weydiisto ma ahan inuu u baahan yahay gargaar oo ay gaajo hayso. Waa sheeko yaab leh oo dhex martay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo madaxweynaha dalka Burkina Faso Kabtan Ibrahim Traoré. Madaxweynaha dalka Burkina Faso oo ahaa askari ku soo koray dab iyo olol soona qaatay nolosha askarinimo waa mid ku suntan aamusnaan, adkaysi iyo go'aan adag. Ma uusan wadan gawaari qaali ah iyo ilaalo badan markii ugu horreysay ee uu booqanayay boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya, wuxuuna ugu horreyn ka degay magaalada Riyadh ee dalkaasi. Waxaa la arkayay muuqaalo isaga oo xiran dharka caadiga ah ee dareyska ciidanka, waxa uuna u muuqday mid dhiiran. Hoolka weyn dhexdiisa waxaa taagnaa dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan, oo ah nin 38 jir ah oo maalqabeen ah, waxa uuna u taagnaa oo diyaar u ahaa soo dhoweynta madaxweynaha dalka Burkina Faso Kabtan Ibrahim Traoré. Si diiran ayuuna u soo dhoweeyay isaga oo dhoola cadeynaya. Kadibna waxaa la iska xog wareystay xaaladaha dalka iyo sida ay wax u jiraan. Mustaqbalka dalka Sacuudi Carabiya ee 2030 aad ayay maalmahaasi ugu mashquulsanaayeen dhaxal sugaha iyo tiimkiisuba, maadaama boqortooyadu ay leedahay aragti fog oo ah in 2030 dalka Sacuudi Carabiya uusan ku sii tiirsanaan karin saliidda cayriin iyo shidaalka, loona bedelo jiha kale oo ah midda dalxiiska iyo saameynta caalamiga ah, iyadoo dalka Sacuudi Carabiya la dhisay magaalooyin hor leh, sidoo kalena la fulinayo mashaariic lagu dhisayo laguna horumarinayo goobo dalxiis oo caalami ah. Hareeraha dhaxal sugaha waxaa fadhiyay maalqabeeno, madaxda saliidda iyo madaxweynayaal kale, iyaga oo gacanta ku haya faylal iyo codsiyo ay wateen, kuwaasi oo ay doonayeen inay u aqbasho boqortooyadu si ay u helaan maalgelinta mashaariic ay wateen. Dhammaantood waxa ay sugayaan in uu madaxa hal mar u luxo dhaxal suguhu si uu u aqbalo codsiyadooda, isla markaana uu u daaro nalka cagaaran ee lagu bixiyo malaayiinta dollar. Waa sanduuqa maalgashiga ee dalka Sacuudiga. Albaabada hoolka ayaase hal mar furmay si lama filaan ah, indhaha oo dhanna waxa ay u soo jeesteen dhanka iridda. Ma jirin kolonyo gawaari ah oo meesha taalay ama wax ilaalo gaar ah oo socday, balse isla markiiba waxaa soo muuqday nin wata dharka ciidanka, isla markaana ay la socdaan dhowr qof oo isaga ilaalo u ah. Waa madaxweynaha dalka Burkina Faso Kabtan Ibrahim Traoré. Waa hoolkii shirka oo ay fadhiyaan dad badan oo hoolka isugu yimiday, iyo sidoo kale dhaxal sugaha oo joogay qol ku dhow hoolka. Waa kuma ninkan ayayna isweydiiyeen madaxdii fadhiday hoolka, iyaga oo ku xanshaashaqaya qofka uu yahay. Laakiin Ibrahim Traoré ayaa sii watay socodkiisa, wuxuuna fariistay halkii loo asteeyay ee hoolka. Cabaar kadib waxaa hoolka lagu soo dhoweeyay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan, isaga oo loo istaagay isla markaana si diiran loo marxabeeyay. Waxaa bilowday khudbadihii shirka. Madaxdii goobta timid ayaana qaatay hadaladooda, iyaga oo ka hadlaya iskaashiga Sacuudiga iyo sida ay ugu baahan yihiin in Sacuudigu u garab qabto, isla markaana soo hadal qaaday qaaradda Afrika iyo sida ay uga baahan tahay garab istaag. Cabaar kadibse khudbadii ayaa soo gaartay madaxweynaha dalka Burkina Faso Kabtan Ibrahim Traoré. Waxa uuna shirka ka fadhiyay meel gees ah, isaga oo soo dhaqaaqay isla markaana u soo jeestay dhinaca masraxa, halkaasi oo lagu soo dhoweeyay sacab. Si degan ayuu u istaagay masraxa, waxa uuna salaamay guud ahaan dadka isugu yimiday shirka, isaga oo u mahad celiyay boqortooyada dalka Sacuudi Carabiya. Intaasi kadib dhaxal sugaha ayaa yar jalaacay, isaga oo xiiseynaya warka madaxweynaha dalka Burkina Faso Kabtan Ibrahim Traoré. Sida caadiga ah, madaxda lacaynka ah Ibrahim Traoré ee ka soo jeeda qaaradda Afrika marka ay booqdaan dalka Sacuudi Carabiya iyo dalalka hodanka ah ee la midka ah, waxa ay u tagaan inay dalkooda ku tilmaamaan mid ay gaajo hayso, isla markaana boqortooyada ay weydiistaan gacan qabasho ama fadli dheeraad ah. Balse Ibrahim Traoré waxa uu ahaa mid ka duwan madaxdaasi. Waxa uuna hadalkiisa ku bilaabay: mudanayaal iyo marwooyin, waxaan u mahad celinayaa guud ahaan madaxda halkan ku sugan, gaar ahaan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan. Waxaana si xushmad leh boqortooyada u weydiisanayaa inay siiyaan fursad. Waxaan rabaa inaan dhiso iskaashi iyo wadajir.
waxaan rabaa inaan wada faa'iidno dhammaanteena. Mudanayaal iyo marwooyin, uma imaan halkan inaan u baahanahay gargaar ama ay dalkayga ka jirto gaajo, iyada oo Afrika ay tahay dadkeedu mid sabool ah. Haddana waxaan aaminsanahay inay yihiin dad hodan ka ah maskaxda, waana dad leh wax soo saar iyo karti. Waa hadday iyagu u istaagaan inay wax qabsadaane. Maxamed bin Salmaan ayaa cabbaar eegayay madaxweyne Ibrahim Traore, isaga oo la yaabanaa hadalka geesinimada leh iyo sida uu ninkani u dhiiran yahay, ee uu kaga duwan yahay madaxdii hore ee uu arki jiray ee qaaradda Afrika. Indhaha Ibrahim Traore ma aysan libiqsan mar qura. Mar rabo in lay siiyo kharashaadka oo keliya, ee waxa aan rabaa kalsoonidiina. Waxaan rabaa inaan caddeeyo mustaqbalka Afrika in uusan ahayn gargaar oo keliya, ee uu yahay iskaashi iyo wax wada qabsi. Kadib khudbad dheer oo caajis ah, madaxda hoolka intooda badan ayaa u muuqday kuwo daalan, iyaga oo qaarkood taleefanadooda miiska hoostiisa ka eeganaya. Madaxweynuhu waxa uu eegay maalqabeennada dhanka tiknoolajiyadda ah iyo madaxda saliidda ee ku sugnaa goobta. Waxa uuna madaxda ka socotay shirkadaha isaga oo cod degan kula hadlaya. Ibrahim Traore waxa uu weydiiyey marka indhaha ay isku qabtaan oo aad ay u eegaan mustaqbalka qaaradda Afrika, isla markaana ay fikiraan in ay tahay goob istaraatiiji ah, isla markaana mudan in la maalgashado. Dhismayaasha dhaadheer iyo mashiinada dheereeya ma ahan hanti la maalgashado ee keliya, ee waxa ugu muhiimsan ee la maalgashan karo waa bini'aadan maskaxda hodanka ah, isla markaana karti u leh waxa ay qabanayaan, ayuu yiri madaxweyne Traore. Nin maalqabeena oo ka soo jeeda qaaradda Yurub ayaana madaxweyne Traore weydiiyey, inaad iska riyootaan oo keliya ma sameynayso micno gaar ah, balse waxaa micno sameynaya kharashaadka iyo lacagta lagu maalgelinayo mashaariicda. Madaxweyne Traore isaga oo dhool cadeynaya ayuuna ugu jawaabay, waa ay dhici kartaa, laakiin riyo la'aan qofna hodan ma noqdo. Ibrahim Traore ayaa sii raaciyey, hoolkan uma joogo inaan caawimaad weydiisto boqortooyada. Waxaan halkan u joogaa inaan idin xusuusiyo in hantidu aysan ahayn wax micno gaar ah sameynaya haddii aan lagu sameynin maalgelin mustaqbal leh. Mustaqbalka Afrika waxaa wax u tari kara hogaamiye dhiiran oo dadkiisa wax u qabta iyo maalqabeen dalkiisa uga faa'iideeya waxyaabaha muhiimka ah. Ibrahim Traore ayaana jeebka kala soo baxay sawir duug ah oo ku sawiran yahay wiil 10 jir ah. Kani waa Musa, waa 10 jir, waxa uu ka yimiday tuulo yar oo la yiraahdo Kanga ee ku taala Burkina Faso 3 bilood ka hor. Kongo koronto la'aan ayay ahayd, laakiin dadka tuulada oo muujiyay isku tashi ayaana iibsaday korontada solarka ee ku shaqeysa cadceedda. Sawirkani waxa uu muujinayaa Musa oo shidaya guluubkii ugu horreeyay ee tuulada iftiimiya. Taasina waxa ay muujinaysaa dadka Afrikaanka ah sida ay u yihiin kuwo wax soo saar leh, isla markaana ay uga fikiraan mustaqbalka iyo danahooda dambe. Musa sanado ka hor ma uusan awoodin inuu wax barto, laakiin hadda waa mid awooda inuu habeen iyo maalin si isku mid ah oo waxbarashadiisa u wato. Taasina waa horumarka ay ku tillaabsanayso qaaradda Afrika, ayuu yiri. Intaasi kadib waxa uu madaxweyne Ibrahim Traore shaashadda ku soo bandhigay khariirada Afrika iyo mashruuca loo yaqaano Trans-Sahel Corridor, oo ah mashruuc ka kooban wadooyin tareeno iyo fiilooyin internet ah oo dhererkoodu uu gaarayo ilaa 8,000 oo kiiloomitir, kuwaasi oo isku xiraya ilaa 12 dal oo ka tirsan qaaradda Afrika. Intaasi kadib Ibrahim Traore waxa uu sheegay kharashaadka ku baxaya haddii mashruucan la fuliyo, isla markaana laga gacan qabto dalka Burkina Faso. Nin ganacsada ah ayaana weydiiyey una sheegay in mashruucan lacagta ku baxaysa ay tahay mid qaali ah. Wuxuuna madaxweyne Traore ugu jawaabay in mashruucan lacagta ku baxaysa ay ka yar tahay qiimaha lagu dhiso hal hotel oo raaxo ah oo ku yaala dalka Sacuudiga. Dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaana qorshaha madaxweyne Traore la qaatay, isaga oo sheegay in ay maalgelin doonaan mashruucan, qaybna ay ka qaadan doonaan. Waxa uuna dhaxal suguhu sheegay maanta sanduuqa maalgashiga ah ee boqortooyada Sacuudiga waxa uu ballan qaadayaa 500 milyan oo dollar oo ah qaybta koobaad ee marinka Trans-Sahel Corridor, waana mashruuc muhiim u ah, ayuu yiri, in Afrika laga fuliyo. Mashruucan oo qaybo ka mid ah hore loo fuliyay, isla markaana dalalka Nigeria iyo Niger qaybo ka mid ah laga fuliyay,
ayaana la rajeynayaa in dhowaan laga fuliyo qaybo ka mid ah dalka Burkina Faso ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika. Daawade, haddii aad halkaan nala soo gaartay channelka subscribe isla markaana ka mid noqo saaxiibada inagu xiran, waxaynu halkaan ku soo gudbin doonaa sheekooyin iyo muuqaalo xiiso badan.